maanta waxaynu halkan u joognaa aaskii ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye walaalkeen maxamed aadan xirsi teera waxaa ka marakacaysa shakhsiyadiisii inta qof ee maanta Soomaaliya aaskiisa ka soo qayb gashay adduunyadana inta lagala tagayaa waa intaasu isaga maanta wax kale nagalama gudboona in loo duceeyo mooyaane waxaan leenahay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo ehelkii uu ka tagayna iyo dhammaanba ummadda Soomaaliyeedna ilaahay samiriyay man ka siiyo maxamed muddo dheer baan wada shaqaynaynay qof afkiisa iyo adinkiisaba dadku ay ka nabad galaan buu ahaa adoon aad u wanaagsan buu ahaa mar kale waa u ducaynayaa intiina barnaamijkan daawanaysana waxaan jeclahay inaad u ducaysaan ilaahay meel wanaagsan ha mariyo ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun haweeye marxuumka imika deeas baa la joogaa duco iyo in ilaahay loo baryo ayuunbaa uu inaga geeyaa ilaahay ha u naxariisto raxmad waasica mar baa shaqadana la wada qoray 73kii radio Muqdisho ilaa waqtiga ilaa maanta oo xaqi u yimina marba aan inay soo jireen dad wada socda baan ahayn marka nin karti badan oo hawsha uu galo yani sida ay tahay u guta ayuu ahaa nin akhlaaq wanaagsan oo aan leexleex lahayn buu ahaa nin waji kaliya adigu imanayso ayuu ahaa nin qowl leh oo hadalkiisu cad yahay oo waxaan ogolanaa ma ogoli mana suuroobayso wixii uu markaa waafaqsanayaa sida ay tahay ka yeelay ayuu ahaa nin urursan buu ahaa ilaahu naxariisto oo israacsan taasoo aanu la jeedo qof yani bashaasha oo yani furfuran oo kaftamaya haddana deelqaaf aan lahayn oo yani hadal ka dhaca iyo eray aad qoonsato aanad inta badan ku arkayn الله يرحمنا صاحبتنا ذو معنا قوني لا لا ضحي ودتك أي وضع رفيقان قدرين تودا إيه مقرن سكورحين تودا إيه كحدان تودا بقى آدي آدو سوقبوها اللهم حريصه أنا قم مدة أنا لو وضع قريش غدا إلى مركز بس قال سنودك كدي بلبيش جيتك أنا قان حقا إجلن يوسف بحيي ضد مرول بتشوكتو وضع شقية بانوهين حق ورر كانوا بدين لبضي يدوبا wuxuu lahaa dhinac kale oo yani xilkasnimo ah oo xagga mas'uuliyadda iyo maamulka qabashadiisa oo aad ugu wanaagsanaa taasoo markii dambe markisiisay in uu madax ka noqdo radio Muqdisho in uu idaacadaha oo dhan madax u noqdo markii dambe aan England imana yani muddo baa jirtay uu jaamacadii saxaafadda galay waqtiga kadibna uu ku soo noqday shaqadii hawl maalmeedkii yani wartabinta idaacaddana uu madax ka noqday wakaalada wararka ee Soonana uu madax u noqday intaba waan la socdaa marka waxa weeye nin de ilaahay adoomiisa nagu amaani mayno qof wanaagsan baynu ku tirinaynaa naxsabuhu dhalika wala nuzaki ala allah ahadan cid aynu ilaahay u amaanaynaa inagu ilaahay adoomiisa u amaani mayno isaga inagu saasinu laakiin ku tirinaynaa aynu u haysanaa inuu qof wanaagsan adoon wanaagsan ahaa ilaahay u naxariisto ilaahay raxmadiisa waasica ha ku galado ilaahay xabaasha u waasiciyo ha u nuuro ilaahay yani dunuubtiisa oo dhan ha ka dhaafo ilaahay wixii uu soo maray xanuun iyo dhibaato ahaa kafaara iyo dambi dhaaf ha uga dhigo raximahullah raxmatan waasica بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت ما أنت هل كان وحين أتاجنا هاي الله يرحمه آسكي محمد آدن حرسي تيرا وكمدها الرجير عداقها ورفافين الصومالي ذا كالنت مهم
ka soo qaatay gaar ahaanna markii la casriyeeyey laga soo bilaabo 1973 raggii kaalinta firfircoon ee muuqata ka qaatay ayuu runtii ahaa maxamed waxa uu ahaa intaa dalmar uu sheegay oo dhan oo aan uga markhaati kacayo nin wanaagsan saaxiibtinimo leh dadkoo dhan ay wada jecel yihiin bashaasha ayuu ahaa taana waxaad ku garanaysaa maanta halkan aynu taagannahay oo maalin jimco ah bisha Ramadaanna 10kii ugu dambeeyay aynu ku jirna runtii salaadii janaasadana ay ka soo qayb galeen dadkii ugu badnaa ee aan arko salaad janaasa ka soo qayb gala intaasoo dhan marka la isu geeyo waxa uu muujinayaa adoon wanaagsan oo Ilaahay agtiisa wax badan oo wanaagsan ay u yaalaan in uu yahay muddo dheer ayaanu isnaqaanay wuxuu kamid ahaa raggii aan ugu tagay idaacadda radio Muqdisho markii anaga dhaqawaasi ka dambeeyay madax buu ii soo noqday oo wuxuu madax ka soo noqday idaacadaha Soomaalida radio Muqdisho iyo radio Hargeysa kadibna waxa uu madax ka noqday markii uu jaamacadda soo dhameystay wakaaladda wararka ee Soomaaliyeed ee Sona ayuu madax ka soo noqday halkanna waxa uu ahaa agaasimaha TV-ga Puntland qaybta UK ayuu ahaa runtii waxa uu ahaa nin dadka Soomaaliyeed uu isugu mid yahay cidii uu markaasi uu gargaari karayo ama uu garab istaagi karayo ama uu wax la qaban karayana u diyaar ahaa oo si kalsooni iyo niyad sami ah runtii u muujinayay teera kuma soo koobi karayno daqiiqada yar oo hadal wax qabadkiisii iyo dadnimadiisii waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay qabriga ha u waasiciyo ha u nuuriyo marti la jecel yahay ha u noqdo rawdatu min rawdatil jannana ilaahay ha uga dhigo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh raxiim ilaahay subxaanahu wa tacaala walaalkeen teera allah u naxariisto waa walaal qiimo badan oo runtii wanaag badan dadkoo dhan isku raaceen aniga xafiiskayga xafiiskiisa isku dhawaa aad baan u sheekaysan jirnay waxaan runtii u ahaa qof mar walba ka sheekay wanaaga dalka dadkana xasuusiyo dadkiisa jecel diintiisa jecel nabiguna wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam annaasu shuhadaa'u Allahu fil ard dadku waa marqaati ilaahay dhulka u joogo dadkoo dhan qofkii khayr isku marqaati kacaan waxay cadeynaysaa inuu ahlu janno yahay nabiguna wuxuu wajabad ninkii saxaabiga ahaa markay saxaabada isagoo la taagan ay dhaheen ninkaas waa nin wanaagsan ninkan nabigana uu yiri janna u ahaatay marka waxaan leenahay ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu qabrigiisa u waasiciyo isaga waqti wanaagsan maalin Ramadaan 10ka dambe jimco intaas oo dhan waa calaamado qurux badan marka dadka dhan waxaan leenahay u soo ducayaan ilaahay qabrigiisa uga dhigo beer kamid beeraha jannada ehelkiisa iyo dadkii uu ka dhintayna iyagaba isaga kadib ilaahay nama fidnayo ilaahay qabrigiisa beer kamid beeraha jannada Allah uga dhigo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun maanta waxaan joognaa aaskii saaxiibkeena qaaliga ahay marxuum maxamed aadan xirsi teera anoo ku hadlayo magaca fanaaniinta Soomaaliyeed oo dhan halkan waxaan tacsiin ugu dirayaa eheladiis iyo qaraabadiis iyo wadkii oo ka tagay oo kala joogaan Ingiriiska iyo magaalada Nairobi tan labaad waxaan hambalad u dirayaa oo muujiyeen maxamed aadan teera inay telefishinkooda ku xusaan shalay qur'aan ay saaraan sharaf aan maadaama nin ruux cadaa u ahay marka waxaan ka codsanayaa gobolada jiraan iyo dowladda Soomaaliya nin kastoo anaga naga mid ah oo lajan ah marka uu dhinto almeen xuskaas inaan helno anaga jaga ma baranne oo ummadii ogaadaan qur'aankaas iyo waxaas waana mahadsantiin inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun walaalkeen Allah u naxariisto maxamed aadan xirsi teera oo kamid ahaa aqoonyahanka Soomaaliyeed warbaahintii Soomaaliyeed odayaashoodii iyo budagayaashoodii wax badan ka soo shaqeeyay warbaahinta ama tii gudaha Soomaaliya ama midda banaanka intii la joogay noqday agaasime qaybo kala duwan ee warbaahinta Soomaaliya agaasimaha waaxda idaacadaha Soomaaliyeed agaasimaha wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Sona ka baxay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed bartay saxaafadda culumteeda kadibna aan ka harin burburkii inuu ummadda isu keeno warbaahinta ummadda loo gudbiyo wax taraya oo fiican si looga baabi'iyo waxa aan wanaagsanayn ee ummadda lagu shubay
maxamed aadan xirsi teera aniga waxaan isbarannay 1980kii markaan ku biiray radio muqdisho wixii ka dambeeyana waa wada joognay telefishinka universal iyo london muddaan ka wada shaqaynaynay barnaamij la yidhaha foolka fool iyo wararka ayuu akhrin jiray intii dambana darisaan ahayn oo aniga gurigayga iyo gurigiisu hal mayl ayay isu jireen yacni nin aqoon aan u leeyahay ku dayasho mudan ayuu ahaa aan dhib badnayn dadka aan dhibin dadka isu duma isu keena marka waxaan leenahay allah u naxariisto maxamed aadan xirsi teera waxaan uga tacsiyeynaynaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan qoyskii baan uga tacsiyeynaynaa walaalihiis Cabdiqaadir iyo Faadumo iyo carruurtiisa oo London iyo Nairobi Kenya jooga in Ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo asagana qabriga u waasiciyo jannada firdawsana uu ka waraabiyo aamiin aamiin baan leenahay ilaahay u naxariisto jannadii firdawsa allah ka waraabiyo waxaan joognaa aaskii marxuum maxamed aadan xirsi teera oo mar ahaa aabbaheen mar ahaa saaxiibkeen mar ahaa nin wax badan isla shaqaynay wax badan aan shakhsiyan ka faa'iiday warbaahinta Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed magac weyn ku dhaxlaha wuxuuna ka mid ahaa dadka ugu magaca dheer bulshada Soomaaliyeed qiimo weyn loo hayo qaasatan bahda warbaahinta aan ka mid ahayna uu ahaa tusaale iyo astaan iyo ku dayasho intaba wax badan aan ka faa'iidnay ilaahay jannadii firdawsa allah ka waraabiyo shakhsiyan dadka aan aad wax uga barto ka mid ahaa waana tabaya ilaahay jannadii firdawsa ka waraabiyo إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan marka ugu horeeya tacsi u dirayaa qoyskii xaaskiisii maymuun iyo carruurtii uu ka geeriyooday way farxiyo ugu weyn tahay sidoo kale waxaan tacsi u dirayaa walaalihiis Faadumo iyo Cabdulqaadir marxuum maxamed aadan xirsi teera aniga saaxiibkay buu ahaa walaalkayna waa ahaa teera waxaanu isbarannay 1980kii waqtigaas waanu ku kulanay jaamacadda ummadda kuleedii saxaafadda aniguna ana arday ka yimid dugsi sare ka soo baxay oo markaa jaamacadda ku soo biiray isaguna uu ahaa nin shaqaalaha oo ka yimi oo madaxa oo ka yimi warfaafinta ilaa maanta xiriir baanu lahayn waanu wada shaqaynaynay wuxuu ahaa shakhsi aad u qiimo badan shakhsi asluub leh oo dhaqan wanaagsan buu ahaa nin wax kasta oo wanaagsan taageero buu ahaa nin jecel saxaafaddu inay u shaqayso sida ugu habboon mujtamaca wuxuu tari karto ahaa ilaa maalintuu bilaabay saxaafadda ilaa maanta mihnada saxaafadda buu ku shaqaynayay kama bixin marna ma ahayn raggii wariyaasha ahaa oo siyaasadda iyo galay marna midna ma noqon waxaa nin ku adeegsada saxaafadda wax walba marka tacsi baan u dirayaa dadka oo dhan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن لله وإنا إليه راجعون. إنا إليكم راجعون. كل نفس ذائقة الموت. نفول بوا قويسا. كل وذا قوينا وحرينا ماله. ومرك وجهوري وحنا كان تحسي قدر يا دمان قويسكي هلدي عرورتي يعني وكتجي ولكن محمد آدم حرسي تيرا إيوه صومالي ودن بعض الصحافة gaar ahaan guud ahaan waxaan uga tacsiinaya dhammaan yani bixitaankii uu naga tagay shakhsi anaga aad nagu dheer aniga teera 1968 ayaan yani isku baranay dugsiga sare raayugaas aan wada bilownay kun waxaynu dhamayno ka baxnay 1972 waxaynu galnay xaalana baynu galnay isku kabni baynu noqonay dugsiga raagowgaas xaalana isku kabni baynu noqonay xaalana kabnigii wax ka soo wada baxnay shaqada qaranka aynu galnay shaqada qarankii waxaynu iskool hoodan baynu wada nimid 72 December bay ahayd halkaas aan sanad ka wada shaqaynay marka 1973 wasaaradda warfaafinta oo la qaatay annagoo 8 marka waana la kala qaybshay teera wuxuu aaday raadi muqdisho aniga 6 Oktoobar rag badan oo fara badan oo maanta maqlay ee wasaaradda warfaafinta waagaad rag la qaybiyay ku jirana waa la kala qaybiyay wakaalada Soona filimada teatarka iyo waxa loo qaybiyay jaraa'idka loo kala qaybiyay marka maxamed aadan xirsi runtii aniga 50 sano baan garanayaa ka bacdi Nairobi aan hadana 2003 idaacadda Iqra Yaasiin iyo Mursal asiga ay joogeen ayaa waxaan ka sameeyay barnaamij taxanaha asiga oo hogaaminayay oo barnaamijka af Soomaaliga ka sameeyay oo sanad soconayay ka bacdina waa tuu halkan loogu yimid wuxuu ka soo shaqeeyay Universal TV idaacadda ku shaqeeyay laakiin ka hor waxa uu noqday agaasimaha raadi Muqdisho wuxuu noqday agaasimaha wakaalada Soona Somalia News Agency ayuu noqday ka bacdi wuxuu ka soo baxay kuliyadii saxaafadda ka soo baxay marka aniga 50 sano baan garanayay
يعني إلا هاد يعني لا الصعدة لمشديسي حنون كيسي إلا لندن هالكان يعني نسكجور هنا هادنا وأقاسمها إذا عد بونتلاند ويان مركز هدو دنتي يعني يونيفرسال بوكسو شقية ترى مركز أقول له هذا حق الشخصية ديسو ترى وشخص أن تمبر لهين كاركتر يعني عجائب له اللي هي قف دقن أو يعني نظيفة أو صومالية أو أندغن أو أن عرون oo weligii laga sheegan ani konton sano baan garanaya teero oo xanaaqsan ama kacsan weligii ma arag runtii aniga waxaan ku tilmaami karaa shakhsigaas inuu ahaa shakhsi Soomaaliya dadka waxa iga baday marka idaacadii raadi Muqdisho dadkii la shaqeyn jiray iyo wakaalada Soonna markuu joogana gooni weeyaan laakiin aniga tan ku aqiinay 1986 ilaa hadda yani teero wuxuu ahaa shakhsi Soomaaliya ku tixgeliya dadka nin walba ku tixgeliya heerkiisa ku tixgeliya waa eragan la qaadan karin weeyaan nin walba teero wuxuu ku tixgelin jiray ilaa inta ogaa aan la sheekaysanay weliga aan aqiinay yani qofka sharaf Soomaaliga uu u sharfanay xaqiis waa nin maamulka iyo dawladnimada ku dheeraa waa nin jeclay habka maamulka haykalnimada waa nin eexda iyo qabyaalada ku fogay waa nin Soomaalinimada ku dheeray aniga noloshayda baa inuu jal isbitaalka markaa ugu tagay aniga Umar Sheekh Oslo soqono marka arinta galna waxa la yiraahdaa nafti baa ka baxday asoo koorna maalin ka hor aan u tagay ana oo la sheekaysanay oo la qoslay oo wax walba iga sheekaynay waxyaalo badan fariin badan oo soo faray marka alxamdulillah rabbil alamin ilaahay jannada ha ka waraabiyo ilaahay jannada ha ka waraabiyo maxamed aadan teera waxa loogu baxshay eriga teera waa Talyaani weeyaan anaga u bixinay waaga yaryareen dhul weeyaan teera dhulku waxa loogu bixin macnaheedu waa dheeray macnaha saasa loogu bixin teera waa earth waa ground waa dhulkaas weeyaan waa Talyaani weeyaan anaga u bixinay waaga yaryareen konton sano aqinay oo ilaa hadda isla soconay oo ku soo dhaweeyay London markuu soo galo yimid yani qof teera baran oo aan jeclaan ma jiro aniga ilaahay baan ka baqayaa runtan ogeey shakhsi daacada cadaalad ah oo wanaaga haykalka sharafta yani dadka ixtiraamaya qofka heerkiisa iyo ku tixgelinaya oo qof walba raba ee qof walba soo dhaweeyna ee qof walba dhageysanaa buu ahay aad iyo aad baa maasantiin ilaahay jannada ka waraabiyo bismillaahir rahmaanir rahiim inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun maanta waxaanu aasnay maxamed aadan xirsi teera oo ahaa nin walaalkeena oo aanu soo wada shaqaynay muddo aan yareen oo 45 sano ah waxaan xusuustaa 1973 baan waxaan wada tagnay wasaaradda warfaafinta imtixaan baan laga qaaday anagoo afartameeye ah dadkii ugu horeeyay oo lagu qaatay codkooda iyo waxgarashada aqligooda ayuu ahaa dhowr nin oo isaga ku jira raadiyaha lagu reebay inta iyada kalena wax loo qaybiyay wasaaradda warfaafinta qaybaheeda kala duwan maxamed waxaan ku naqaanay edeb iyo asluub iyo afgaabni iyo alla ka cabsi hatta dhalinyaranimada waxaanu meelaha marmari jirnay iyo ninka ku socotaanay ma ahayn ilaahay waxaan u rajaynaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu jannadiisa fardowsa oo wax ka siiyo oo halkaas muxuu ahaa dambigiisana iyo dambigeennaba ilaahay inuu dhaafo annagana gadaashiisa ilaahayna ma fidnay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan joognaa aaskii walaalkeen maxamed aadan xirsi teere oo maanta halkan aanu ku xabaalnay marka horeysa ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan uga baryaynaa biasmaa'ihi alxusna wa sifaatihi alculaa inuu dambigiisa iyo kiwaaridkiisa dhaafo qabrigiisana u waasiciyo ahel iyo qaraabadu ka geeriyooday oo dhan iyo bahda saxaafadda iyo Soomaali weyna oo nooga tacseenina intuusan geeriyoonin ka hor waxyaalo igala dardaarmay waxa kamid ahaa inuu yiri qofkii Soomaaliyeed aragtid ha ii soo duceeyo walaalayaalow u duceeya qabrigu ku jira maanta anaga ducayn karna asagu ma ducaysan karo anaguna berrita ayaanu ku xignaa waa silsilad is haysata ilaahay subxaanahu wa ta'aala qabrigiisa mar labada ha u nuuriyo wuxuu ahaa shakhsi ku dayasho mudan sidqi badan ama run badan hadalkiisuna uu cad yahay danta guud ee ummadda Soomaaliyeed iyo tan qoysaskuna aysan isaga khaldanayn waa mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullah inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan dhamaan tacsuud diray ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan marka xiga waxaan tacsuud diray ehelkii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday walaalkeen maxamed aadan xirsi teera iyo dhammaan saxufiyiinta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan kulley aniga inta yareed aan ma aragtay isnaqaanay wuxuu ahaa shakhsi aan ku safeen karo inuu ahaa shakhsi ehludiin ah shakhsi aad u wanaagsan inta igu horeysan ee wada qareen marka aniga hadalku ma sii dheeraanayo waxaan ilaahay ugu baryayaa in uu ilaahay subxaanahu qaadira janno firdowsa ka waraabiyo annagana ma aragtay gadaashiisa uu nafidneenin
mar walbana insha Allah bidnaa kariim sidoo walaalkay iga horeeyay Cabdixaafid uu sheegay in aan ma aragto u soo duceysaan walaalkeen maadaama uu codsaday in loo duceeyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Allah u raxmado macallinkeenii saxaafadda wariyaheenii baraheenii sare maxamed aadan xirsi teera oo maanta tacsiisaan halkan u nimid dad badan oo asxaab iyo ehelo iyo Soomaali oo dhan leh ayaa halkan isugu yimid runtiina waa tacsi weyn oo ummadda iyo qaranka iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan u taala anna gaar ahaan waxaan uga tacsiyeynayaa qof kasta oo yaqiinay magaciisa waa bishii barakaysnada Ramadaan waa 10kii dambe waa maalin Jimco ah waxaan leeyahay qof kasta oo codkaygu gaaro ha u soo duceeyo macallinka maxamed aadan xirsi teera jannada firdaws Allah ka waraabiyo raalli baan ka nahay maaragtay waana cafinay idinkana soo cafiya wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waxa aynu ku sugannahay goobtii lagu aasayay maanta ay isugu yimaadeen ummadda Soomaaliyeed Allah u naxariistee maxamed aadan teera oo ka mid ahaa suxufiyiintii Soomaaliyeed isla markaana ka soo shaqeysay radio Muqdisho radio Hargeysa iyo wakaaladii wararka Soomaaliyeed ee Soona waxa halkan isugu yimid guud ahaan dadweynaha ku dhaqan magaalada tan London waxa ayna muujinaysay waxa uu ahaa Allah u naxariistee teera taariikhdiisa dad badan ayaa halkan ku soo koobay oo uga hadlay waxa uu ahaan jiray iyo wuxuu ka soo shaqeeyay waxaanu leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay u naxariisto